dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ku mashquulsan daadejinta howlaha dhismaha golayaasha deegaanka iyadoo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dowladda Soomaaliya. Warbixintaasina Cabdiraxmaan Wadani ayaa inoo faahfaahinaya. tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka waxaa marka ka dambeysay soo xoogeysanaya nidaamka dowladnimo ee ka hana qaaday dalkeena maadaama nidaamka dowladnimo ee aan qaadanay uu yahay mid ku dhisan saddex heer oo kala ah heer federaal heer dowlad goboleed iyo heer dowladda hoose taas oo ujeedada laga leeyahay ay tahay in shacabka Soomaaliyeed ee ku kala nool degmooyinka gobolada dalka loo dhaweeyo adeegyada dawladda iyo ka warqabka bulshada dowlad goboleedka Hirshabelle oo kamid ah dowlad goboleedyada ka jira dalka iyadoo kaashanaysa hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya u qaabilsan howlaha maamul dejinta waxa ay xooga ay saareysaa sidii degmooyinka Hirshabelle ay ugu hanqaadi lahaayeen maamulo ay soo doorteen bulshada ku dhaqan degmooyinkaas si loo gaaro himilooyinka aan soo xusnay sharciga dhismaha golaha deegaanka sharci lambar 4 oo uu ansixiyay baarlamaanka Hirshabelle ayaa qeexaya nidaamka lagu dhisayo golayaasha deegaanka iyo doorka ay yeelanayaan dhammaan inta ay qusayso dhismaha golaha deegaanka toddobaadkii la soo dhaafay dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ku guuleystay dhisidda degmadii ugu horeysay ee ay yeelato golo deegaan degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle degmada Warshiq oo ah degmadii ugu horeysay ayaa yeelatay 22 xubin oo ah matalayaasha bulshada degmadaasi si shacabka ku dhaqan degmadaasi loo gaarsiiyo adeegyada bulshada hadda wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cali Caadli ayaa ka sheekeeyay dadaaladii ay ka soo mareen dhismaha golaha deegaanka degmada Warshiq oo ay kaalin weyn ay ka qaadatay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya safar dheer ayaan ku soo jirnay marba waxbaa jiray waxa aad loo daahiyay sharciga oo aad u tahay inuu muddo dheer waqti la qoray iyo dhowr maaragtay muddo sanad ku dhow oo baarlamaanka iyo dhexdiisa uu ku laalaabanayay علي Guudlaaw Xuseen madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ayaa ka hadlay dhismaha golaha deegaanka muhiimadda ay u leedahay dadka ku nool degmada Warshiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa la rabay guud ahaan laga wada dhiso dowlad goboleedka Hirshabelle golaha deegaanka laakiin maanta waxaan naqatay degmada ugu horeysay ee ku guuleysatay ilaahay ina mahad mas'uuliyiintii degmadan dayta gudoomiyaha iyo dayta ku-xigeenadiisii meel fiican aad soo gaarsiiseen meeshay ka bilaabeen bulshadu way ogtahay qof kasta meeshay keentay in looga mahad celiyo la rabaa degmadan waqtigu horeeyay ee aan imaanayna ama nimankii cadawga ay gacantooda laga bixinayay ma lahayn xafiis loo shaqo tago maanta waxay leedahay xafiis kursiga lagu soo dhaweynaa ninka mas'uulka degmooyinka kale ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa u soo diyaarinaya dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka Jowhar Beledweyne iyo degmada Buluburte ayaa waxa laga daafuray dhismaha golaha deegaanka maalnimadii shalay ay ahayd markii dhismaha golaha deegaanka laga daafuray degmada Buluburte ee gobolka Hiiraan wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cali Caadli oo ka hadlay daafurka dhismaha golayaasha deegaanka Buluburte ayaa sheegay in sida uu dhaqsiyaha badan ay u dhisi doonaan golaha deegaanka degmadaasi insha Allah ta'ala tan shaqadeedu sida uu dhaqso badan ay si xawliya ugu bilaaban doontaa waxaana u maleynaa sida shalay aan u ballanay ama hadda hadalladu ay u dhacaayeen wax aad iyo aadna loogu farxo insha Allah ta'ala wax taariikhi in meeshan ka dhacaan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa dadka ku nool Buluburte ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha golaha deegaanka degmadaasi ma ogeey sidee noola qaadan doontaa golaha deegaanka in laga dhiso degmada Buluburte sidaad noola qaadateen haddii aan wada hadalnay binaadamku wuxuu isku fahmo waa in la wada hadlay haddaan wada hadalnay masaalixda dadka iyo deegaanka ugu jirtana aan idin sheegnay la qaadashada aad nala qaadateen taladii aan wadnana waa idin kaga mahad celinaynaa Maxamuud Xaaji Xasan Xaqiiji oo oday dhaqameed ku nool Jowhar waxa uu bulshada reer Hirshabelle ugu baaqay inay taageeraan dhismaha golayaasha deegaanka oo iminka ka socda qayb ka mid ah degmooyinka Hirshabelle waxa socda wacyiga socda in la taageero waayo dawladda hadda Hirshabelle haday ka tagtay meesha xataa waa nidaam jideysmay oo noo jiray wax maanta ku eg maaha in la taageero wax walba markay bilow yihiin waa dib badan yihiin Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar